qof waliba wuu guulaysan karaa bima cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guushiyo kadeedku ama guushiyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegyahay kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo muxuu kororhsada xawma kororhsan soo maa laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxaddada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sano ama 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedantay inta kadeedan baad ku jirtaa idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyntay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantoo keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeediso directionka aad u jeedeen raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo haysta iyo adoo maamuus laba xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leegtahay dhallinyaray waxaan idiin sheegayaa marka inaad guulaysataan iyo inaad guuldarraysataan waxay ku xidhantahay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo wakhti loo lumiyo mise maaha hadduu waxaa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxaa qiimaha leh markaad gaadhaa unbuu habaan mansuura noqonaya ayuumaad waayaysaa wixii marka hore waxaad lahaydee guul baad xaqiijinaysaa idan guusha dhabta ee nolosha guusha dhabteeda ahi waa markaad aakhiro badbaado faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaahay wuxuu inooga warramay cidda guulaysatay inay ciddaasoo qura tahay sida awgeed ayuha alaxiba noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyey tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama waa idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yani bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu dankaa yeesho shafeeca kugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erga kugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhahdeen يعني نبغى حبرة يا صحابة موازين تم ها وحلقوا قيمية بني آدم كسي الله قيمية تنوح لي لملء هذا من ذاك ها هراء يقول هاي وهو البوية هاي
dhulka muggiyo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nabigu yiri waa hal nin iyo dhulka muggiyo kii kala ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggiis weydaariyay waxa isweydaariyay mawaasiinta wax lagu qiimeynaya kala noocaha waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareeda faa'iido ma leh xabad jannada u sii socota dhaanto Soomaa hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya tii faa'iido ma leh walidaalika nabigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quro kaasa dhaama ayuha alahibba waxa dhibto inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalbay wixii wax ku qiimeyn lahaayeen waxay wax ku qiimeyn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini'aadamku ka qiimo badnaa gaari iyo daar iyo waxaas maaha wax lagu qiimeeyo qofkii musdaarood buu leeyahay qiimihiisu maaha shaqaadu wataana qiimihiisu maaha gaarigu wataa noocu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtahay taasun baana aakhira marka la isugu yimaado waxaan faacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su'aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nabi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini'aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nabi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nabigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannu geli buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday nolosha qofka bini'aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kooban oo yar iyo hadaf weyn oo ka xaqiiqiga ah ahdaaf kooban bay leedahay مثلا arday baatiin iskuulka markaad sanadkan dhiganayso ee aad wax soo akhrido aad diyaar garowdo imtixaanka aad gasho aad baasto waxaad oranaysaa waan guulaystay saxiixa maaha waayo hadafkii koowaad ee ahaa sanadkan inaad dhamayso waa dhamayso markaad 3 sano ama 4 sano dhamayso waad guulaysatay waayo waraaq yar oo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhamaysay waa lagu siinayaa markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leedahay oo koofiyada yaryar iyo maryo yaryar aan kuweenu ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu oranayaa waa calaamadii guusha dabeetana waraaq waa lagu siinayaa haddaba nolosha goormu qofka bini'aadamka odhan kara waan guulaystay noloshu waa wax kooban ninka dhallinyarada inta badan nolosha intaasoo ku arkaa waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray imsaa jirtay anuu 20 baan marayo 22 laakiin qofku markuu da' gaadho 60 iyo meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa war talow maxaa ka hadhay shan baa kuu hadhay ma 2 kuu hadhay ma 10 baa hadhay intii xagga laga soo tirinayay dhammaatay hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa war talow intee ka hadhay haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karno qofku wuu guulaystay ama wuu guuldarraystay waayo qof walba xaqiiqada bini'aadamku uu wadaago ee wada rumaysan yahay baa geeri intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xaqiiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii ka horeysayna waa geeriyootay
inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa dad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd laba maroo yar oo cadcad inta lagu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan oo waxba haynin labadaa maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubay halka unbaa lagugu ridaya haddaad nin iska xamaalo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocba wixiiba ma maradan yare lagu duuduubay ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan من يطع الله محكوعيقا والرسول محكوعيقا إلهي وحط المامية عدي إلهي رسول كيسا أدعضي أيام حي أيام فوزك الفوز العظيم هو صاحبي قرآن أفر شيبا إريقا الفايزون كسا أروري أفر تبوحو كور رمياكا الفوز العظيم صدح يطبان جربة كسا أرورتي صدح يطبان كجربة آخرين كورميسا الفوز الكبير مربى كسا أرورتي إيانا حقاسي كورميسا الفوز المبين لبا جربة كسا أرورتي لحية طبان جربة إريقا الفوز اللي هذا قرآن كسا أروري لحية طبان جر لحية طبان كجر مدنا الدنيا كورميسا لحية طبعا كتيرة إلهي يري ذلك الفوز العظيم أما هو الفوز العظيم أما الفوز المبين أما الفوز الكبير ليري انتو بوحيك والرميان وآخره إذن قوش الدبت نولش قوش الدبت داهي ومركات آخرة بدباده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلهي وحين وقور رمي عدة قوليستين عدة صقرتاي سيداوغين سيدين لو بدبادا ما سيدين لو قادا قوش النبطة هدين ودهنو وين نقطة طريق كستو ماشي أكو جارسين يا وحي لو بدبادي لها طريق كستا وماشي اللي بانتي دا كو جارسين يا وحي لو بدبادي لها ولذلك القرآن كإلهي النبي نقول الماما أنبياء دمان تدوا قول استسماها نبي فاشل لم يجرى ما يا هذا إلهي القرآن كوحي نقول الماما أنبياء دا قار مضح النغضي والدولة دا معمولي وجنيه سبوا تليي سيدي سليمان يا داود يا أنبياء مدحوا وين الله وقورهم وحكى له القرآن كورهم وفريقا تقتلون أنبياء للايي يروح معمولة داير وحقبته كولا السيئة ما إلى القرآن كورهم هذا نوح لنا أنبياء دوا ودقول استين نبي فاشل ما جرى ما قول درست نبي ولي بو قول استين واي هدف كحقيقي أن الله شو قرته noloshu maxay tahay buu fahmay dabeetana isagoo jidkii nolosha ku socda ilaan qof waliba waa dhimanaya ama lagu dilaamo meel sako ku dhimay qof waliba waa dhimanaya isagoo jidkii hayay ka baxday saadaradeed baa loo leeyahay wuu guuleystay laakiin dhalinyarada weydiiyay ninka badaha isku maqiiqay ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka tallaabay Yurub gaaray mana dharakaasi waa guuleystay midna uu dhintay sax ma tahay Yurub la gaadha wax nafta loo bixiyo miyay Yurub la gaadha wax nafta loo huro miyay wax noloshu waxaad u noolayd miyay wadii la waayo ay tahay inaad dhimato ayuha alahibba dadka intiisa badan waxa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayay waxa loo nool yahay
ayaa ninba bad cidlaa ku geeriyoodo meel kale ah qofba siduu meel u ordayay mid isagoo xoolo raadinaya ka baxday mid isagoo dad laynaya ka baxday waliyahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale haday dad badan ka laayeen inay guuleysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jabinay buu leeyahay reer hebel xabadi kama saydhin reer hebel haddii aakhiro loo diro miyaa la guuleystay reer hebel haddaynu aakhiro u diro ma guuleysanay يعني dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadaful xayaa baa la garan waayay waxa loo nooliyaa la garan waayay waxa wax loo baranayaa la garan waayay waxa loo guursanayaa la garan waayay waxa loo joogaa la garan waayay wax oo dhama haday lilaahi yihiin iyo ilaahay tiisa wax idin gaarsiinaya wa fuztu wa rabbil ka'bah saxaabigu sheegay kii midida la galiyay waranka la galiyay saxaabiga geeriyooday wuxuu yiri fuztu ورب الكعبة وأقول استيبولي ربك الكعبة لما كنا عرطيه وأنا اللي دلي ولي بدي الغدر يبقى اللي دلي يعني دي الخيامة ديك ورا نمانو تمادو ويمرك ورا وحوش يقان وقدبت النصيحة دو كتلين السي ومرك هذا تمادو مدين تحق دبك عمره ورنكو قليو هذا الله يطلع لمك هو خيامية ونمك هو يدكرين لكن هنا وحو أركيي نولش وحو رادعيني إنه هلو شهادة سادراتين ما إيجين قولدان خيامي سيئيو مكرقال لسميي يوحنا نموما موغانا وحاو موغاتي هالكو سعودي وحو أركي بين طريقي وصوق قابيا جنة اللو سعودي ميلدو إنه كتن لابصدي سادراتين بوحو لها فزت ورب الكعبة دليري وحنا دي شيء مرك إن قوليستان يانا قول دريستان waxay ku xidhantay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo misamaha haduu waxa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guuleysatay hadii aanu ahayn waxa qiimaha leh markaad gaadhaa buu habaan mansuura noqonaya ayuma waayaysaa wixii marka hore waxa salahayd guul baad xaqiijinaysaa kayrubu si rooraya marka uu badda nafta ku halqeeyay waxa la guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuma bay noloshu waa cidhiidh noqonaysaa soo BBC meelaha kaba maqashaan mid isagu da qantaradii ka talaabo la wareysanayo la hadaa sidan moodayo way wuxuu islaadad halkan ka talawdo حاجة كلام لا جنة كحكتور رجيني لعق يا برارة يا برواقة يا ورسيدنا أقول بنتي نبلا أقول بيا حكارة حبيس ما بدلين حلقة يا بدات كبرنا إلى هذا هاي كوي حاجات يسوقها قردارة صار استيمها ورن لكن غير كنا حلقة يا بين كون قفكر ضفتي إمسا دار صار استي توما صار استي سجال بقولي سجال كي كلمة يسوي دي سن حاجة كم غيين وكوا هل كان جوجا طبعا كم بدمياني دارا دسان وهالكن جوجا dadka halkan degan toba kamid oo daaran isnimo jireen waan talaabin ba ka badan ku halkan jooga intay daaran isteen ba waxay ka badan tahay in xaga tagtay daarahay dhisatay waxa uga jeeda hadaad xataa soo dhisato si uu godka gelimaysid waxa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyay قالت قار بدن با maanta way istilaan waliba groupka istila waxa ugu badan tabaqada sare tabaqa alkaadixa ma aha dadka istila waa kuwa waxaysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma dishay badan waayo waa mashquul ba waxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay ba markay gaadheen buu dhadhan sameyn waayay waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u sameyn waayay kabeen dhaweyd baan dhakhtar wuxuu lahaa waxaan dhalinyarada markaan nahay buu yiri wax baro wax noqo cayn kan noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yiri in lagu yiraahdo
intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waan waqti aad seexato lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac patient baa la keenay mid baa sakaraada mid baa caynkana maxaan ku samaynaa dhowr iyo 30 saacadood baad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa bulay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdo wax xun waad ka wahsanaysaa waa daashay waa inaad cunno yaroo intaad gaadhiga sii wado aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhansamay war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay uu intaasoo sano wuxuu soo baranayay doctorka uu soo noqday qalliin u bartay mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhansamay waayo hadafka qaldan wuxuu noolaa baan u garanin tacab uu ka sii qaaday daal iyo inuu seexan waayo dadana wixii intuu iskaga yimo meelaha yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad isleedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado ma lacagtu kuu badato intan aad iminka cunto ka badan ma qaado kadan haddii lagu ridana way xaruusataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weyde hawl badan unbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto ad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fiirsan markay masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo tooma meelaha tahay naftaa la isugu keenay idan noloshiiba aduu intaada yarkamaha ka qaata halkaa ka baxda cidina kuma daba socoto socanka ma wax ku boodar garaynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtid inta magac iyo maamuuska leh kamarad baa lala daba ordaya iyo halkuu marayo waa kano waa luuqluuq bay marayaan inta mudanay lafahooda bay u baqayaan imka hadaad madaxweyne noqoto dee maqaaxida ka shaahimaysa xorriyadda waad waayaysa maxbuus sharafeed baad noqonaysaa qol baad ku xidhantiyo meel laakiin lagu odhan maayo waa xabsiye waa qolkii madaxtooyada lagu odhanaya waa qol sharaf leh qolkii sharafta laakiin haddaad ka soo baxdo waa in askari iyo bunduqiyo iyo qoryo ku daba rooraan waa xabsi dhabaad gelaysaa yaa lagaa xabsinayaa intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa markaa waa xabsi sharafeed baa la yidhaahdaa waa maxaabiis madaxduye laakiin waa maxaabiis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweyn dunida maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cid baa cunada kaa dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa laakiin wax walba uu ka shakisay cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka oo dhammi war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid 10 kan casha ha ku dhaafaan iska sug maalinta dambe caynkaasay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adigu meesha aad u baahato baskaa kaa xiga inaad fuusho tusaa maaha laakiin ninka madaxda ahi meeshu u baahdaa sidaa maaha idan bini aadamku wuxuu ammaanta moodaya xabsiisu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsiisu bedelay ayuu waayay qofku xorriyadiisii u ahaa qof bini aadam oo nool ayuu alaxibba marka war noloshan adduun qiimo ma yaallo noloshan adduun ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuhal insaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad problemkaa isbedela maalinba problemka aad ka fakaraysunbaa kii hore ka gedisan mushkiladda nooceedunbaa isbedelaya imika waxa laga yaabaa inaad leedahay dee mushkilad cunno yariya baa nahay soo 3 midhoo canjeelaabay islaamtuna siisaa nuguma filla hadhowna mushkilad cunno xumiyuunbaa ku helaysaa oo wax lagu odhanaya kana cuni maysid cunnadii waad haysaa laakiin waa mamnuuc macaan baad qabtaa inta macaan cuni maysid barashar baad qabtaa inta dhanaan cuni maysid wax waliba waa mamnuuc imika waad xorriyad baad haysataa laakiin dee maqaaxida waa iska fadhiyaa maxaad haysaa baan ku hayaa laakiin ka madaxweynuhu wuxuu leeyahay mar run yaa maqaaxidii kugu celiya iska shaahayso dadka tiraahdo war maxaa haysaane ma haysto idan nolosha problemskeeda isbedela
لكن قول ملتني مركا هير كتلو ده مشكلات عصب وضع سلا مشكلات بعد حل الشيء اللي يرى ودتين هذا وده قردون باتين سماها لكن مالته قرستان عرور يرير يو دختر يو سلامتي باور لا يو دختر كان لقينيا مشكلات كلو مقوب بلا مسا أدونك هو دباطو مرك أدونك هو كبد ودال وبيرحنون انت اللي نولي هنا والوجرية وحا كوجري دادك كو إلهي وجعلا يا ربي وجعلي دوني دادك نولا دو الرسول ماها رسول شي الله وجعلا با كوجري دبتا قرآنك الرسول للدلي يا الرسول لإريدي يا الرسول دقالمي وحب والله ينوغا وربا نبي محمد تاريخ دي سبينه هنا عليه الصلاة والسلام أغون نمو رجاين نمو إنه لغا سارو دولكو ورد شيء ميشيسي دقالو قلو نفط الله سوكا وحا صعد بن آدم كمرو مري إذن الحياة هكذا هذا بهذا ربنا نولا شيء نقول كحقيقي إنه قولي وين تأدي إلهي ودواتون هداد إلهي كل دواتون نولا شنبا فضايد مسا حتى مشكلات كده يصير نغرية مشكلات كده سيدا لو حللو أي فضودانية أنا مركا waxaan rabaa inaan su'aalo badan madaxiina ku kiciyo jawaabuhuna intii almisidiin sheegay inay noqoto su'aaluhu waxa weeyaan nolosha tani waa kadeed hadaful xayaa haddaanad fahminna adoo daalan unbaad godka gelaysaa adoo daalan ama madaxweyne noqo ama taajir noqo ama bilyaneer noqo adoo daalan baa laba maroo yaryar lagaaga duuduubaya wax kaa raacaya aanay jirin وحلالي واحد ودا شيء وحبك الراعي مايا وحبك الراعي مايا مدحوين أنا هاجري اللعب بالله هاجري هبل بالله مركز مرضك وقضوا أيام بين ميتكو بحنايا حتى ما قاعد المانيا دي بلورن مايا مدحوين حباش سفي عنو دقا أما تاجر حباش سوى أكثر دقا أما أو هبل حباش سوى أكثر عندك أورن مايس ميتك يدو الأولية هي وبالغ سوى ضيا haddaba waxaa habboon indhuhu dhalanteed bay arkaan caqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwoodka aad moodo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu markay ka fog tahay waa biyo is leedahay لكن هذا عقله سفي عنه شقين أيه أتقرن سينا نبي هنا ماشي عاد هذا حيسو هذا تسي عقله سيحسو أتراور بالكوردو وين تسوي بيه نوطاي عقله هذا تراور سيحوه واربل ماشي كوردو وين تسوي بيه نوطاي مركات ما دام حيسو أبا حيسه دالنتين همي نفته الدنيا ده كوساب سنورده من نوع نوعه wax kasta markuu ka maqan yahay buu ku yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho baan wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa soo maaha waa la seexdaa haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gamo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa nin Soomaaliyeed baa wax laga sheegay hurdaan macaanayna ma seexan cunaan macaanayna ma cunin weedhacaynkaasa laga sheegay saddex mas'alo hurdaan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan baa seexda markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida ood burburaysaa cunadana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi cunaa aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan baan cunaa buu leeyahay gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dii wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay
ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saxiixa maaha ama yaro garow hela garowga canduftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sida maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan ba kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaainta haddaad gaadho wuxuu way isbedeli lahayd ee adaa meel cidlaa fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbedel ma leh sidaa awgeed noloshu waxaan tiiviyada laga akhrinayo iyo warkan yaan laydin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga uu isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqaday haddaa sheegayaan tusaa ma ogidin statistiska dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami iyo afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu nafta iska qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday badhaadhatay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way cuntami weyd dabeetana ka taga bay sidhaahdeen mala xagga kalaaba war jiraaye idan ayuha alaxiba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xaruusatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طمأنينة القلب qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan ولذلك baa culammadii waaweynaan rag ka mida ibraahim ibn al-adham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi waynugula diriri lahay ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani طمأنينة القلب buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududayd oo u arkayeen nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdo guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas'uuliyad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaaba guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bima cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil 7 jannada carsh araxmaan harsan ayuu ka mid yahay
haddaad nin dhallinyara oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guushiyo kadeedku ama guushiyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo muxuu kororhsaday waxba ma kororhsan soo maa laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxaddada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waa muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iido ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanto soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iido ma leh walidaalika nabigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama ayuha alaxibba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalda wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini'aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaas maaha wax lagu qiimayo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su'aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini'aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay u cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyntay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantoo keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeediso directionka aad u jeedeen raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad